السلام عليكم أصحابتا Somali Tech muuqaalkeenan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa qaabka dhammaan xogta ku kaydsan taleefankaaga hadday tahay sawirro, muuqaallo, dokumentiyo, applicationo aynu ugu kaydsanayno internetka si haddii taleefankeenu lumo ama haddii taleefankeenu gacanteena ka baxo aynu xogteena si fudud dib ugu heli karno. gaar ahaan waxaynu adeegsanaynaa application qof wal oo inaga mid ah taleefankiisa ku duuban oo sida caadiga marka horeba aynu adeegsano ayaynu ku kaydsanaynaa xogteena. hore ayaan muuqaalidii kula wadaagay 5 application oo aad xogtaada ku kaydsan karto oo kala duwan. applicationkii ka mid ugu wanaagsanaa wuxuu ahaa applicationkii ku siinayay 100 GB. haddii aad u baahantahay muuqaalka isagana inaad check garayso linkigiisa halkan ayuu yaalaa. haddaba applicationkan oo adeegsanaynaa waa applicationka loo yaqaano Telegram oo 90% taleefanadeena ku duuban. applicationkaas wuxuu naga caawinayaa inaynu san hadda kor idin soo tilmaamay dhammaan macluumaadka xogta taleefankeena ku kaydsan aynu ku wareejin karno si haddii taleefankeenu naga lumo ama gacanteena ka baxo aynu macluumaadkeena dib ugu heli karno maadaama aynu sida caadiga ah Telegramkeena adeegsano. haddaba waxaynu adeegsan doonaa wax loo yaqaano Telegram channel oo inaguna aynu leenahay asa Somali Tech oo badanaa aan soo geliyo faylasha aan muuqaaladeeda kula wadaago oo linkigiisana qaybta hoose muuqaalka aan soo dhigo. haddaba waxaan samaysan doonaa Telegram channel halkaas ayaynu xogta ku kaydsanaynaa. haddaba aynu isla aragno qaabka aynu xogta ugu kaydsanayno. marka koowaad waxaynu u baahanahay inaynu samaysano Telegram channel si aynu ugu kaydsano xogteena iyo macluumaadkeena. Telegram channelku wuxuu la mid yahay sida caadiga WhatsApp groupka oo kale, balse farqiga kaliya u dhaxeeya waxa weeye Telegram channelka hal qof ayaa wax soo dhiga oo dadka kale kaliya way arkaan iyagu wax ma soo gelin karaan, halka ay groupada caadiga ee WhatsAppka iyo Telegramka waxna ay soo gelin karaan dadku wada hadli karaan. haddaba si aynu u samaysano Telegram channel waxaan dooranaynaa calaamadda yar hoose. kadib waxaan dooranaynaa halkay ku qoran tahay new channel. kadib si aynu arno halkan ayaynu magac ku qoranaynaa. anigu hadda waxaan ku qoranayaa private. kadib waxaan dooranayaa calaamadda saxa ee xagga sare ku taalla. kadib waxaan dooranayaa halka hoose ku taalo private channel. qaybta sare haddaad public channel doorato dadka kale ayaa soo geli kara, laakiin private channel ayaan dooranaynaa. kadib si aynu arno linkiga xagga hoose kaaga muuqanaya cidna la wadaagin, cidna ha u share karin. haddii aad linkiga cod u dirto waxay arkayaan faylashaada. kadib waxaan dooranaa calaamadda saxa ee xagga sare. kadib waxaan iska dooranaa calaamadda yar hoose. si aynu arno hadda private channelkeeni waa uu inoo diyaarsan yahay. si aynu macluumaadka u soo gelino waxaan dooranaa calaamadda yar ee laga soo geliyo faylasha. kadib markaan doorano waxay noo soo baxay sawiradii ku kaydsanaa taleefankeena. kadib dhammaan sawirada aad u baahantahay oo dhan ayaad dooranaysaa si aad ugu soo dirto Telegram channelkan oo aad ugu kaydsato. tusaale ahaan qaar ka mid ah baan tusaale ahaan iska xulanayaa. kadib markaan xusho dhowr waxaan dooranayaa calaamadda yar ee hoose ee ay soo noqona dirista. si aynu aragno dhammaan sawiradii waa ay soo galeen Telegramkayga. qaabkaas aad sawirada u soo gelinaysaa. haddaan mar labaad doorto sawirada iyo muuqaalada taleefankaagu halkaa markay kaaga soo baxaan halkaas ayaad dooranaysaa. kadib markaad doorato intaad rabto waad diraysaa. si aad faylal usoo geliso waxaad dooranaysaa qaybta yar hoose ku taalo. faylasha waxaa kamid ah dokumentiyada, applicationada iyo waxyaabaha lamidka ah. haddaan qaybta yar imika fayl doorto, qaybta sare waxay naga muuqda internal storage iyo gallery oo micnaheedu yahay internal storage waa taleefankayga kaydkiisa, qaybta hoosena waa galleryga. internal storage kan doorshay si aynu arno halka waxay nooga soo baxay khaanadihii taleefankayga. waxaan dooranayaa khaanadii ku taalo 500 waxaan kasoo noqdaan ku noqonayaa. kadib waxaan dooranayaa faylka u sarreeya ee 500 oo ah fayl documenti ah oo ay ku kaydsan yihiin shortcuttada computerka horena aan muuqaal uga sameeyay. haddii aan dib ugu soo noqdo si aynu arno halkan hoose waa kategoriyada iyo qaybaha waxyaabaha ku kaydsan taleefankaaga. haddii aan xaggan u duubo aan doorto music waxaa ku jira waxyaabaha codka ah ee sida ila maqalka ah. haddaan ka u sarreeyo doorto si aynu arno oo mid kamid ah maqala oo aan doorto si aynu kaasina qaabkaas ayuu soo gelaya. haddaba dhammaan faylasha taleefanka ku kaydsan oo dhan qaabkaas ayaad u soo gelinaysaa. haddii sawirro ama muuqaal yihiin qaybta galleryga ay soo gelayaan, sidoo kale qaybtan hore kuu soo muuqanaysana waa ay soo gelayaan oo marka horeba aad joogto. haddii ay yihiin faylal fayl oo kale ama documenti ama application waxaad dooranaysaa fayl. haddii kale uu yahay wax maqalana waxaad dooranaysaa music. haddaba talaabada labaad aynu sameyn waxa weeye inaynu iska xidhno in faylashan aynu gelinay Telegram uu hadda taleefankeenu download garaysto. si aynu isaga aadino waxaynu aadnaa qaybta setting ee Telegramkeena. kadib waxaan dooranaa halkay ku taalo data and storage
kadib haddaad u fiirsato qaybtii ku taalo automatic media browser ayaynu saddexda option ee kala sareeya saddexdaba yacni saynu arno baktiinayna ka u sareeya waxaa weeye when using mobile data download gare applicationada marka mobile data ka koosana waa wireless marka waxba uma baahnin saddexdaba downloadka waxaynu ka qaadanaa tigta kadib haddii dib uga soo noqono dhammaan macluumaadkaagii sawiradaadii waxaagii oo dhan faylashaad gashatay waxay kugu kaydsanayaan telegramkaaga haddii aad applicationkan telegramka ka saarto taleefankaaga ama haddii taleefankaaguba kaa lumo oo gacantaada ka baxo ama aad masaxdo dhammaan sawiradaadii dib ayaad si fudud ugu helaysaa adigoo marka dambe aad telegramka taleefankaaga ku duubtay aad akoonkaagii dib u gasho channelkaaga private channelka dhammaan faylashaad gashatay aad ugu soo noqonayso sidoo kale waxaad awood u leedahay dhammaan faylashii aad gashatay taleefankaaga in aad sidoo kale computerkaaga ka heli karto haddii aad telegram kula soo degto computerka sida oo kale xogta kugu kaydsan computerkaaga ayaa telegramkaaga dhigan kartaa hadda u fiirso saynu aragno telegramka ayaan computer ku jira fayl ka mid ah faylasha computerka ii yaala oo sawir ah ayaan rabaa inaan kusoo jiido telegram isaan isagana ugu kaydsado telegram kadib markaan kusoo jiido faylkaasi isla si isku mid ah computerkayga iyo telefoonkaygaba u soo gelaya markana waxaad u adeegsan kartaa xitaa inaad faylasha ay computerka iyo telefoonka aad isaga dirto oo haddii aad private channelkaaga aad telefoonka kasoo geliso file waxaad ka download garaysan kartaa computerka haddii aad computerka telegram kasoo geliso private channelkaaga sawirna sidoo kale waxaad kala degi kartaa telefoonkaaga xitaa waxaad u adeegsan kartaa inaad faylasha isaga dirto hadda saynu u aragno waa uu soo galay sawirkan dhanka computerka kasoo gelinay telefoonka sidaa lamid ah haddii aynu application soo gelino sida xagga hoosedii ka muuqata isaguna wuu kasoo muuqanaya oo uu soo gelaya telefonkeena haddaba waxaad u adeegsan kartaa inaad faylasha telefonkaaga iyo computerka isu dabamariso iyo sidoo kale si lamida inaad xogtaada ku kaydsato si haddii telefonkaaga gacantaada ka baxo ama xogtaadu si kale kaaga luntaba aad xogtaada si fudud uga soo ceshan karto adigoo adeegsanaya application aad inta badan adeegsato aan adeegsanaynin application kale oo u baahan inaad la soo degto ama inaad si gaara u adeegsato